بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معنا خيارتا كحرن channel كينا دكتور بول channel سود هذا إن شاء الله تعالى ما أنتم حنكبل علينا دراستين وجوريسي حبس كتير كبلادنك تاسون قال لتونه سيستم كلوي خانو ديفشيتك أما GIT سيستم كان وحو كبل على أفكار سيدا لغناي تاس أو وورا صبح يقفك أو أفكار جلسين على جيو kadibna maaragtay ay ka shaqeeyaan salayfa ama waxa Soomaalidu u taqaano candhuufta iyo ilkihii oo aad u burburiya waxyaabihii waaweynaa ee ka koobna qofka cunada uu cunay inta kadib qofku wuxuu sameeyaa inuu cunadii laqo ama iswaallow gareeyo cunadaas waxay u gudbi doontaa dhuunta ama hunguriga taas oo ku xidhi doonta raashinkii markaasi caloosha toos ama tartiiba ay u tagto waxaa markaa ka bacdi cunadii ama raashinkii lagu sameyn doonaa in si fiican loo burburiyo caloosha waxaa ku jiro gas ama acid loo yaqaano HCl ama hydrochloric acid hydrochloric acid kaasi waxaa markaa ay sameysaa burburin aad u weyn taasoo ka dhigta cuntadii daqiiq ama wax maaragtay aad u budaa waxayna sahashaa markaas in caloosha ay ka baxaan una gudbaan cunadii xagga intestine-ka ama mindhicirada ay u gudbaan taasna maaragtay waxay qayb ka tahay in cunadii hadhow loo kala saaro cunno maaragtay proteinkii iyo vitaminkii mineralkii ku jira in laga bixiyo loona gudbiyo dhanka iyo maaragtay jirka loo gudbiyo iyadoo shaqada mainkeeda ama meesha ugu weyn laga qabanayo ay tahay mindhicirada ama intestine-ka waxaana shaqadaas badankeed qabta small intestine-ka ama mindhicirada yararka ayaa qabta waxaa dhacda markaa in badanaa la qabto maaragtay cunadaasi wasaqdeedii la qabto oo laga reebo wixii la qaadayo jirka loo qaadayo wixii dasta ama wasaqa laga reebo taasoo loo gudbiyo markaasi large intestine-ka ama mindhicirada waaweyn markii mindhicirada waaweyn loo gudbiyo waxaa isla socda markaasi cunadii haraaga kasoo haray ee qashinkii ahaa iyo water ama biyo ayaa isla socda biyahaasi waxaa haddana dib looga sii nuugaa large intestine-ka ama mindhicirada waaweyn ayaa dib looga sii nuugaa meeshaas waxaa ka dhacda marka in qofka uu hadhow saxara keydka ama ragtamka qofta loo yaqaano ay tagto saxara adag qofkaas markaasi uu si caada u saxaroodo maasha Allah meeshaas waxaa ka dhashay markaasi system oo digestion ama dheefshiid ah oo si qurux badan uga soo bilowday meel kalena ugu dhamaaday alxamdulillah awooddaas oo dhan Allah subxaanahu wa tacaala ayaa na siiyey waxaa jira mararka qaar defect ama cudurro ku yimaado cuduradaas oo keenaan maaragtay bacteriaska ku jira jirka bini'aadamka ama kuwa banaanka ka yimaada sababa markaas in systemkaas qalqal yar oo kooban ku yimaado waxaa ka mid ah markaas si guud haddaan u dulmarno qodobkaas insha Allah disease-ka ama cudurada ku dhaca GI-ga si fiican ayaan u dhex geli doonaa waxaa ka mid ah shubanka oo kale ama daacun caloolaha hadba sida qofku u yaqaano taasi waxaa sababta bacteria ku jirta intestine-ka loo yaqaano E. coli ama Escherichia coli loo yaqaano waxaa kaloo iyadana jirta in qofka maaragtay ku timaado gas oo kale gaaska waxyaabaha keena waxaa ka mid ah bacteria iyadana maaragtay present ku ah ama laga helo maaragtay stomach laga helo ama caloosha laga helo taas oo iyadana maaragtay loo yaqaano H. pylori ama Helicobacter pylori loo yaqaano marka waxay ka mid yihiin labada ugu waaweyn ee maaragtay dhibka ku keena habdhiska dheefshiidka bini'aadamku leeyahay oo sabab u noqda maaragtay qofkii inuu qalqal kooban ku yimaado nidaamkii cunno shiididii iyo maaragtay nafaqadii jirka uu helayay ee maaragtay qofku uu ku noolaa inuu qalqal ku yimaado waxaa jira cudurro intaa ka badan oo bacteriaska iyo maaragtay virus qaar ay leeyihiin maaragtay waxyaabo fara badan oo soo galo iyo qaar congenital oo qofku uu ku dhasho ilmaha yararka markay ku dhashaan oo kale in maaragtay problemaad ay keenaan oo kale tusaalahaan oo kale waxaa arkaysaa ilmo yar oo dhashay oo aan lahayn area of urination ama goob uu ka saxaroodo oo ragtan ku maaragtay hadii kusoo dhaca saxaradii meel ay ka baxdo asal lahayn oo xiran tahay meeshii kasoo bixi lahayd saxarada xiran tahay ayaa dhici karto waxaa kaloo dhici karto ilmo small intestine-kooda oo ligation ama xirmay uu xiran yahay ama uu laaban yahay ama isku buusan yahay taas oo maaragtay qofkii ku keenaysa in xanuun badan iyo maaragtay cunadii inay dhaqaaq weyso oo qofkii nafaqa darri u dareemo badanaa ilmahan lagu arkaa iyadana insha Allah cuduradaasi oo faahfaahsan iyo cudurro kale la mid ah oo ku dhaca GI-ga insha Allah cashirkeena xiga iyo muuqaal intaan ka wanaagsan ayaan soo dhigaynaa waa mahadsantihiin wixii su'aalaha qaybta hoose subscribe-ka noogu reebo assalaamu calaykum waraxmatullahi